وحلابت هذا كجرة وأبيها walaalkay adiga sirta inay dhaxmartay ilaahay waa og yahay Safwan bin Umayyah ayaa Umar bin Wahab ninka la oran jiray ayagoo marka labadooduba mushrikiina oo Makka ay joogaan waa zamankii nabigeena kaleey salaatu wassalaam waqcadii dagaalkii Badar baa laga soo noqday 7 gaaladana waa laga laayay 7 gaala ana nabigu waa qafasho u xidho u qaatay labadana waa qaraabo Umar bin Wahab inankiisii wuxuu ku jiraa 7 kala xidhay Madiina loo qaatay buu ku jiraa xilli waqti dhahira ay tahay oo magaalada Makka waa magaalo kullu dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodiba meel wada fadhiistay dhagax agteeda wada fadhiisteen markaas ay ka soo qaateen waqcadii dagaalkii Badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka Umar bin Wahab baa yiri hadaan maanta anigu aan heli lahaa dhibta Maxamed uu noo geystay iyo guusha Maxamed maanta uu naga helay tu aanu adkeysan karna ma ahine sumcadii Quraysheed buu dilay hadaan heli lahaa maanta deyn la igu leeyahay cid loo raaco ubadkayga inay iga dayacmaan aan ka baqayna cid iga kafaala qaad hadaan heli lahaa magaalada Madiina intoon tago xeeladan ku tagana anu maanta waan haystaayo inankayga baa iga xidhan intu saban oran lahaaye Maxamed aniga soo khaarijin lahaa buu yiri Safwan bin Umayyah ayaa ka faa'iideysto yiri ma samayn kartaa haa waan samayn karaa ciyaalkaagana aniga ii keen oo ciyaalkayga ka mid noqonayaan deynka lagu leeyahay aniga halay soo raacabu kay waa labadoodu kaliya Makka iyo Madiina masaafada u dhaxaysana waa taqaanaa la 400 kilometer وصار سعودي آلات كان زمن كان يمكن اسكو تورتورا إن فيسبوك يا واتساب يا بلايجين مجري زمن كاس وصار سعودي مدينة وصار قال عمر بن واحد يسوق سيفتي سجيني قارن مر اللي مركو عمر بن الخطاب بايري وعمر بن وهب ها شيطان من شياطين قريش ويانه سيفتي نواك جيني قارن قرت كسيتي برضو النبي إلى علي يقول النبي إنه أجوج النبي كإلى علي صلى الله عليه وسلم شرق أبو سعودي خير ما سعودين markaasuu ayaa rasuulka loo sheego lagu nabi Allah Umar bin Wahab soo galay magaalada soo saamahan Umar markaa uu nabigu ii soo galiya loo soo galiyay xaadu timid buu ka yidhi waxaan u imiday inankaygi oo asiir oo gacantiina ku jiro inaka agtiina aad ku haysataan inaad ihsaanna ii sameeysan waan doonayay ilaa tusana waan doonayay buu yiri oo ka wada hadalno markaa uu nabigu ku yiri seeftana qoorta ku siiyay maxay tahay hada wuxuu qabbaha Allah buu ilaahay habad duleeyay seeftana ma waxbay noo tartay buu dagaalkii Badar iyadoo tan wadano Saudiga 7 naga laayay 7 naga soo qafashay naga soo xidhay ma markaa uu nabigu ku yiri fariisa buu yiri arrinka ma arrinkaadu socoto aniga kaaga waramay oo fariista adiga Safwan bin Umayyah saacadu markay halka xilliga ahayd meel heblaayad fariisateen Makka markaasaad soo qaadateen dagaalkii Badar dhibtii leeyni geystay markaasaad tiri haddaan heli lahaa deynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aanu dhiibo iga kafiil noqoto haddaan heli lahaa Madiina intoon tagaan Maxamed aan kaga soo takhalusi lahaa fursadii buu ka faa'iideysto isaguna deynkiina uu ka qaaday ubadkaagiina uu ku dayactiray ee arrinkaadu socotay kaabo haaye kana hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana ima dili kartida ilaahay baa ilaaliyo rasuulku ku yiri ayaa nabiga uga waramay Allah baa uga waramay markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallahi ya Muhammad wallahi baan ku dhaartay ilaaha xaqiisa aad loogu yeedhaysid waan beeninaynay warka ilaahay uu Jibriil kugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sida hadda adigu hadalka aad u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waa waxba kama jiraan warka dambe adigu aad tiri baana saxa cid warka iga ka soo horeyso ku sheegtana ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto illa Allah ilaahay mooyaan ilaahay baan kugu dhaariyay buu aniguna waan ku rumayn adigane ilaahayna waan rumayn tawxiidka ay qirbu ku yiri halkii buu ku qiray ilaahay marka waxa dunyada ka dhacaya ka og waa ilaahay waxa laabtaada ku jira ka warqaba waa ilaahay ishaadan inay wax aragto ilaahay amarkiisa u baahan tahay dhagtaadu inay wax maqasho
ilaahay amarkiisay u baahan tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu adiga wax ku tuso ka indho u baahan maaha